dhawaan ayay ahayd markii ay kalfadhi aan caadi ahayn ay isugu yimaadeen badiba xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berberi kaasoo ay ku qaadaceen isla markaana ay ku sheegeen in haba yaraatee aanay yeeli doonin in wakaalada leedhka Berberi lagu wareejiyo shirkada ay leeyihiin dad gaar ahi oo in muddo murankeedu ka taagnaa magaalada Berbera shacabka reer Berberina ay aad u hadalhayeen haddaba xildhibaan Maxamed Cali Dheere oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera oo qaar kamid ah warbaahinta gobolka kula hadlayay magaalada Berbera ee wax laga xumaada ku tilmaamay in golihii deegaanka ay soo doorteen shacabku ay noqdaan kuwa kalfadhi been ah u soo abuuray bulshadii soo dooratay kalfadhigaas oo lagu sheegay in ka gole ahaan lagu diidan yahay wareejinta wakaalada leedhka Berbera ayaa waxa uu xildhibaan Maxamed Cali Dheere uu daboolka ka qaaday go'aankaasi ay soo saareen ka gole ahaan inuu ahaa mid been abuur ah isla markaana lagu mijar habaabinayo shacabka reer Berbera waxaana uu sheegay in qayb kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berberi iyo xubno sarsare oo kamid ah xukuumadda dhexe ay ka siman yihiin fikirka in wakaalada leedhka Berberi lagu wareejiyo shirkad gaar loo leeyahay xildhibaan Maxamed Cali Dheere oo ka hadlaya arrimahaasi waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaan doonayaa anigoo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera inaan arrimo magaalada Berbera ka taagnaa ayaamahanba inaan wax ka taataabto aan wax ka idhaahdo waxaa dhacday in shirkad la yidhi waxaa la yidhahdaa Tayo lagu wareejiyey warshadii leedhka ee degmada Berbera waxaa dhacday inaan hadalkan idhaahno wadaanay xildhibaan ahaan khaasatan anigu maalintaa madasha lagu soo bandhigayaan joogay waxaa dhacday inaan golaha isugu yeedhno shirkidoonka aan ka codsanay inay golaha fadhiisiyaan alxamdulilah fadhigii qabsoon laakiin fadhigii golaha deegaanka ee Berbera waxa uu noqday fadhi beena oo ummadana lagu qancinaya inay golihii fadhiisteen oo qaraar ka soo saareen dowladda dhexe iyo golaha barkiina ay isla ogaayeen in qowda la maqashiyo waxa weeyaan waxaa ceeba oo wax laga khajila ah in shirkadii leedhka oo aanan waxba ka ogeyn xataa al'aan inay warshadii leedhka dhex fadhido oo tiraahdo waanu maamulayno maareeyo ay dowladda magacowday iyo maareeyo ay shirkadu wadato inay isdhinac fadhiyaan waxaa kaloo ceeba in go-aankii golaha deegaanka uu meel mari waayo waxba ay ka fuli waayaan waxaa kaloo ceeba oo aan la dhegaysan karin oo bulshada reer Berbera ku adoqonnimo waan faraya in maareeyihii ku-xigeenkii leedhka na la dhahdo bannaanka u bax shirkad aanaan garanin cid allaaliya cid wadatiyo meel ay ka timi iyo nooc ay u shaqaynaysa qaab ay u shaqaynaysana in laga joojiyo shacabka anigoo Maxamed Cali mid baan anoo xildhibaanana weedha saxda markaanu idiin sheegay nuu garab istaag weedha khaladka markaanu idiin sheegay war naga joojin u dhaha haddaydan shacabka idinku masaxin waxba saxmi maayaan warshada leedhka ee Berbera haddaad ku farxayso iyo haddaad ka naxayso waa lala wareegi golaha deegaanka barkii baa raalli ka maamulka gobolka raalli ka maamulada wakaaladaha madaxa bannaan baa raalli ka Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.